maxkamadda sare ee dalka ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay codsi u yimaaday oo la xiriira in gebi ahaanba qareennada dalka aysan wax shaqo ah ku yeelan dacwadii uu soo gudbiyey Raila Amolo Odinga ee maanta dhageysigeeda uu bilowday waxaana gebi ahaanba maxkamadda ay ku gacan seertay dalabkaas oo ka yimid madaxweynaha dooran ee dalka William Ruto isaga oo muujinayay in LSK dalada ay ku midaysan yihiin qareennada dalka gebi ahaanba aan looga baahnayn in dacwadan ay ka soo muuqdaan maxkamadda ayaa tilmaamtay in xilligan aysan macquul ahayn dalabkaasi isla markaana ay xor u yihiin dhinacyadan in ay qaataan go'aanka la xiriira ka qaybgalka doorashada inta ugu macquulsan waxa kiis la xiriira arintan horay u gudbiyay Moses Kuria kaasi oo ku andacoonayay in maxkamadda sare daaqada ay ka tuurto midda uu gudbiyay Raila Odinga ee uu kaga soo horjeedo natiijada ugu dambaysa ee doorashada ee 15 bishan Agoosto lagu dhawaaqay waxaana muuqanaysa in walwal xoogan laga muujinayo sida ay arintan u sii socon karto iyadoona maxkamadda go'aankeeda ay ku qeexday in xor ay u yihiin qareennada dalka intooda la karo inay ka soo muuqdaan dacwadda isla markaana goobjoog ay noqdaan iyaga oo kala difaaci doona William Ruto iyo Raila Odinga